bulshada waan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan u malaynayaa hadal badan loo baahno waqtigu waa kooban yahay hadalkuna waa kooban yahay in yar baan dul marayaa sooyaalka taariikheed ee garaad muxtaar garaad cali buraale oo aad u kooban ugu horeyn garaad muxtaar wuxuu dhashay sanadkii 1968 dabayaaqadeedii wuxuuna ku dhashay magaalada Dumco oo 21 kiiloomitir laga xigta dhinaca koonfureed iyadoo xilliga reerkoodu uu ka soo xagaabaxay magaalada Jabuuti oo ay deganaayeen yaraantii garaad muxtaar wuxuu ku barbaaray magaalada Hargeysa garaadku waxbarashada quraanka Hargeysa ka bilaabay isla markaana dugsiga hoose dhexe wuxuu ka galay dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Hargeysa dugsiga sare wuxuu ka galay magaalada Hargeysa wuxuuna ka galay dugsiga sare ee Gacan Libaax wuxuuna dhiganayay fasalka koobaad ilaa fasalka saddexaad ama form 1 ilaa form 3 wuxuu dhiganayay dugsiga sare ee Gacan Libaax ee Hargeysa iyadoo ay hal fasal u harsan tahay buugaraadku u soo wareegay magaalada Muqdisho fasalka afraad ama form 4 wuxuu ka dhigtay dugsiga sare ee Raaga Ugaas ee Muqdisho inta ka bacdi wuxuu sii gudbay jaamacadiisu waxay ahaayeen waddanka Canada intuu galay buu galay digriigii hore oo ahaa electronic engineer oo qaatay 1996 wuxuu ka qaatay jaamacadda loo yiraahdo Defer University oo Canada jaamacadda labaad oo iyaduna isla digriiga hore ama bachelorka hore iyaduna wuxuu ka qaatay University Fanakis digriigaas wuxuu ka qaatay digriiga bachelor oo ah information technology ama IT wuxuu leeyahay garaadku 4 dibloma oo inta ka baxsan oo 4 tuba ay yihiin system engineering Microsoft haddaan inta ku dhaafo educational background-ka garaadka aanu gudbo shaqada oo kooban markii ugu horeysay garaadku wuxuu shaqo ka bilaabay macallin kombiyuutarada oo waddanka Canada isla muddo yar ka bacdi wuxuu noqday team leader oo qaybta macallimiinta oo isla kombiyuutarada oo shaqada soo